asalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada falanqaynta aflaanta ee ra'yi web tv maanta waxaan idin wadaa filin xiise badan oo dagaal daahsoon 2016 oo la yiraa nobody fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe-gaagu waa dhiirigelin kana mid noqo asxaabta ku xiran mahadsanid daawasho wacan filimku wuxuu ku bilaabanayaa nin la yiraahdo Haj oo lagu hayo qolka baaritaanka wuxuu gudaha jaakadiisa kala soo baxay bisad yar isagoo qasaacad wax ku siiyey xabad sigaar ahna shitay baarayaashu waxay weydiiyeen cidda uu yahay wuxuuna ugu jawaabay qofna ma ihi inta aan la soo xirin ka hor waxaynu aragnaa nolol maalmeedka Haj shaqo jimicsi isagoo subax walba ku guuldareysta inuu gaaro gaariga xashiishka xaaskiisa Beka waa wakiilka dhismaha waxay dhaleen 2 caruur ah Belik iyo Sami Haj iyo Beka xurguf yar ayaa ka dhaxayso Belik wuu salugsan yahay aabihii habeenkii xigay wuxuu maqlay shanqadh wuxuu hubiyey in ay ilmuhu jifaan Haj hoos ayuu u soo degay wuxuuna gartay in gurigiisa loo soo dhacay Louis iyo Lupita waa laba tuug Lupita ayaa aragtay waxayna ku qabatay biskoolad Haj wuxuu u sheegay in ay qaataan lacagta balse ay ka tagaan waxay arkeen saacadda iyo faraantiga u xirnaa iyagoo ka qaatay saacaddii balse faraantigii uu ka diiday tuugadii oo sii baxas leh Belik ayaa gadaal uga yimid oo qorsagaaro ku qabtay Louis Lupita ayaa biskoolada ku qabatay waxayna tiri siida Haj oo birta ku dhufan raba ayaa iska daayay Lupita wuxuuna ku yiri wiilkiisa siida ninka uu sii daayay Louisna feer ayuu ku dhuftay Belik wayna carareen in yar kadib askarta ayaa timid Haj wuxuu soo arkaa in wax matare ah dhanka kale isbatoorihii ayaa ku dhaliilay maadaama uu waxba ka qaban waayay arrinka dhacay goobta shaqada maamulihii Haj iyo wiilu adeer u yahay ayaa kala hadlay shilka dhacay Beka walaalkeed ayaa baskoolad siiyey Haj wuxuuna u sheegay inuu walaashii ku difaaco Haj wuxuu taar kula hadlay walaalkii Harley wuxuuna u sheegay inuu ogaal u daayay tuugada sababtoo ah biskoolada ay wateen waxay ahayd mid bilaagumac ah Haj wuxuu booqday aabihii oo ah sargaal CIA howlgab ah isagoo u sheegay in uu wajigiisu wanaagsanayn Haj gurigiisa ayuu dib ugu soo laabtay wuxuuna aad isugu dhaliilayaa maadaama uu waxba ka qaban waayay qoyskiisa oo garab uga baahan markii ay gabadhiisa yar ee Sami u sheegtay in burshuleedkeedii tuugadu xaday bas ayuu raacay wuxuuna tagay guriga David si uu uga qaato baadkii hore ee FBI-ga iyo baskooladiisii markii uu David arkayna wuxuu yiri howl ayaa qabiiga ah waxa taxraac u noqday sawirkii gacanta uga sawirnaa ee taatuugi Lupita Haj wuxuu bilaabay inuu ku wareego goobaha lagu sameeyo taatuuga ugu dambeyntiina wuxuu imaaday meeshii taatuuga lagu sameeyay waxay isku dayeen inay ka cabsiyaan odaygii meesha lahaa ayaa arkay taatuuga ku sawiran gacanta Haj oo u eg calaamada turubka aad buu u naxay wuxuu Haj uga mahadceliyay adeega wuuna baxay ragii kale markay arkeen cabsida ninka ayay u tilmaameen gurigii tuugada Haj wuxuu yimid guriga Lupita iyo Louis ayuu ka gaarsiiyey xabad feer ah wuxuu ka qaaday saacaddii balse waxay u sheegeen in aysan qaadin burshileedka Haj wuxuu arkay ilmaha yar ee ka xanuunsan waxay ka baryeen inuusan waxba yeelin misna ay run u sheegayaan in aysan qaadin burshileedka Haj oo xanaaqsan ayaa guriga ka soo baxay derbiga ayuuna feer ku xarabaxsaday Haj gurigiisa ayuu u sii raacay bas dhalinyaro sakhraansan ayaa gaari shil la galay waxayna soo fuuleen baskii waxay bilaabeen inay qashqashaadaan dadkii baska saarnaa xitaa gabar yar oo kaligeed baska saarneed Haj gabadhii baska waday ayuu bannaanka u saaray si uu wax uga qabto dibjiriinta markii hore way dhayeelsadeen iyagoo u arka oday daalan feeraha ayuu ka garaacay isagoo mindi la geliyey dagaalkii ayuu sii waday ilaa ugu dambayn laga tuuray daaqadda baska Haj wuxuu maareeyay inuu dib ugu soo laabto baskii mid ka mid ah oo la yiraahdo Teddy ayaa baskoolad cabaystay intii ay saaxiibadii dagaalka wadeen markii uu baskooladii ku qabtay Teddy ayuu Haj bir dhunta uga dhuftay naqaska ayaana ku dhagay si uu u neefsado Teddy ayaa dhunta tuubo u geliyey sidiina uu ku badbaaday gurigiisa ayuu yimid Beka hol ayay guriga ka haysaa waxayna garatay in uu dagaal galay markii ay aragtay dhaawac ku yaala iyadoo horena u ogeed waxa uu ahaa waxay bilowday in ay ka dhaydo dhaawacii ku yaalay wuxuuna u sheegay in muddooyinkii u dambeeyay uu xuruurkoodu ahayn sidii hore taasina ay murug ku heeso kala magaalada dhexdeeda ku yaala Mobster Julian oo ah tuug weyn ayaa soo galay hees jaasir kadib wuxuu la kulmay gangis uu la balsansanaa mid ka mid ah ayaa jeeskiisa wax ka sheegay Julian oo xanaaqay ayaa jabiyey bakeerigii qamriga wuxuuna wejiga kaga feeray kuna dilay ninkii jeeskiisa wax ka sheegay heshiiskana way ka ogolaadeen
yulian cisbitaalka ayaa laga soo wacay wuxuuna u tagay teddy oo ahaa walaalkii ka yar oo koomo ku jira dhakhtarku wuxuu sheegay in ay maskaxda jug culus ka gaartay wuxuuna xanaaq kala duldhacay teddy saaxiibadii wuxuuna weydiiyey cidda walaalkii sidaa u gashay haj oo gurigiisa joogo ayuu taleefon u soo diray walaalkii harley wuxuuna u sheegay in yulian yahay gaangistar weyn iskana taxadaro wuxuu u sheegay in uu la kulmo nin la yidhaa barber si uu uga helo xog ku saabsan yulian haj wuxuu yimid meel timajare ah waxayna u muuqataa in ay dadkan imaatinkiisa sugayeen wuxuu siiyey faylasha xogta yulian wuxuuna ka yaabay dembiyada uu horay u geystay ee faylasha ku qoran iyo in uu hayo malaayiin lacag oo sharci darro ah dhanka kale yulian wuxuu howlgeliyey gabar xaakar ah si ay u ogaato xogta haj gabadhii oo horey uga haysay sawirro sir ah nin ka mid a ciidamada FBI-da ayaa ku shirqooshay in uu siiyo xogta haj ugu dambeynna ninkii wuxuu u soo diray xogtii haj markii ay ogaatay in uu haj yahay dilaa hore oo manaxa ah baqdin ayaa gashay yulian ayay u daadisay sawirradii qarashna kama qaadan ciidankiisii ayuu ku amray in ay gacanta ugu soo dhigaan isagoo nool haj oo xilli casho madadaalin qoyskiisa ayaa arkay 3 gaari oo aaggiisa soo galay qoyskiisii wuxuu u sheegay in ay galaan qaybta hoose ee guriga wuxuuna damiyey leerkii tugadii ayaa soo gashay hub wixii uu haystay ayuu adeegsaday ugu dambeynna maansa ayay dhuunta kaga qabteen isagoo suuxsan ayay geliyeen gaariga dhexdiisa si ay ugu geeyaan yulian intii ay sii wadeen ayuu soo naaxay haj wuxuuna gartay inuusan ka boodi karin wuxuu dhinaciisa ka helay birta aaryada dabdemiska gaarigii ayuu ku dhex fulay taasi oo sababtay shil haj gaarigii ayuu ka soo baxay wuxuuna arkay hal nin oo dhaawac culus gaaray markii uu weydiiyey ninkii qofku uu yahay wuxuu u sheegay inuu ahaan jiray dilaaweyn oo magaciisa dadka ka baqan intii uu guriga u sii ordayey wuxuu la hadlay david wuxuuna u sheegay inuu is-ilaaliyo qoyskiisa ayuu soo saaray sami ayuu indhaha ka qabtay waxay arkeen meydadka daadsan guriga dhexdiisa haj wuxuu u sheegay xaaskiisa in ay ilmaha geyso meel ammaankeeda sugan yahay waxayna tiri iga ballanqaad inaad ii soo laaban haj wuxuu fadhiga isugu keenay meydadkii mid ayaa weli nool wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo qisada nin loo diray si uu u soo dilo ninku wuxuu aad uga shallaysanaa falka uu geystay isagoo sheegay inuu ka leexan waddada uu ku socdo wuuna sii daayey bilo kadib wuxuu booqday gurigii ninkii wuxuuna arkay isagoo dhalay 2 carruur oo ku nool nolol farxad leh haj wuu ka maseeray nolosha ninka wuxuuna sheegay in ay sabab u noqotay in uu daayo shaqadii dilka ninkii uu u sheekeynayeyna wuu dhintay gurigii dab ayuu qabadsiiyey wuxuu soo qaaday boorso dahab ah wuxuuna u keenay edi oo la jooga charlie si uu uga iibiyo shirkadiisa charlie ayaa isxanaajiyey wuxuuna damcay inuu u gacan qaado hajina feer ayuu ku aamusiyey edi wuu ka ogolaaday heshiiska haj wuxuu bilaabay inuu dib u hagaajiyo goobtii isagoo dhigay dabin uu isku difaaco wuxuu tagay goobtii kaydka lacagta yulian wuxuuna laayay ciidankii goobta joogay lacagtiina wuu gubay 2 ka mid a ciidamada yulian ayaa yimid guriga haj aabihii david waxayna moodeen in uu hurdo markii ay biskoolada ku qabteen ayuu ku tugtay banduuq uu sii diyaarsaday labadoodiina uu ka takhallusay haj wuxuu tagay baarkii yulian isagoo casho dalbaday ciidankii yulian ayaa hareereeyey haj wuxuu sii diyaarsaday bom si aysan u waxyeelayn wuxuuna u sheegay yulian inuu gubay lacagtiisii yulian wuu dhayalsaday ugu dambeynna run inay tahay ayuu gartay haj oo wata bamkii ayaa soo baxay yulian iyo ciidankiisiina way ka dabagaleen wuxuu toos u abaaray goobtii shirkadda horteeda ayay isku xabadeeyeen haj waxaa layaab ku noqotay markii uu arkay david iyo harley oo gadaashiisa difaac ka haya ciidankii ayaa gudaha soo galay way xabadeeyeen dabinkii loo dhigay ayaa ku qarxay tuugadii qaar kalena markii ay jaraanjarta fuleen dabinka fallaar loo dhigay iyo miinooyin ayay ku dhammaadeen ugu dambeynna waxaa isku soo haray 3doodii iyo yulian haj ayaa la booday miinadii uu hayay isagoo qaatay gaashaanka difaaca qoriga yulian ayaa rasaas ku furay markii uu u dhowaaday yulian ayuu miinadii biinka ka furay halkaana waxaa ku dhintay gaangistarkii yulian haj wuxuu uga mahadceliyey david iyo harley garabka ay siiyeen wayna ka tageen isla markiina waxaa yimid booliskii wuxuuna hore u sii qaatay bisad yar mar kale waxaynu dub aragnaa baaritaankii bilowga ee saldhigga haj wuxuu taagan yahay weli anigu cidna ma ihi dambibaarayaashii waxaa hal mar loo soo diray taleefan
aan la sheegin cidda soo dirtay balse ay u muuqato in xagga sare laga amray waxayna ku khasbanaadeen in ay sii daayaan 3 bilood kadib Hutch iyo Becca waxay iibsan rabaan guri qof ayaa ka soo wacay Hutch taleefanka gabadhii guriga ka iibinaysay inkastoo aan la maqal hadalka cidda soo wacday haddana waxay u muuqatay in loo cagajug leeyahay waxayna gabadhii weydiiyeen in uu gurigu leeyahay qol hoose oo sir ah filimkiina halka ayuu ku dhammaaday fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-daada waa inuu dhiirigelin haddii aad muuqaalka ka heshayna like sar kana mid noqo asxaabta ku xiran mahadsanid